afar shay qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado, inuu iimaanka jadiidiyo, inuu iimaanka ziyaadsado, iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka. diintaada ilaalso, diintaada mar walba cusboonaysiiso, diintaada baro. diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahaydna adiga laga rabaa. diinta ilaalso, kuna qanac diinta, ku qanac. sayidina cumar radia allahu canhu ayaa nin yahuudiyo saaxiibi ay yihiin oo reer bani qurayduu madiine ku soo maray. kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray. wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. cabdullaahi binu thaabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday. alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yidhi, yaa rasuul allah ma kuu bandhigaa nin reer bani quraydoo saaxiibanahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree. fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam, midabkii nebiga isbedelay. balu fiirso, midabkiibaa isbedelay, midabkii rasuulka. cabdullaahi baa yidhi, yaa cumar takiladka ummuk waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin? cumar u naxay, warqaddii buu tuuray. wuxuu yidhi, radinaa billaahi rabban, ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay. wa bilislaami diinan, diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay. dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay, caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba. wa bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya, nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi, raalli baan ku nahay. fasura, nebigu uu farxay, mambarkii buu fuulay. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ismac yaa akhi, dhegayso. dad aan waxba ahayn oo laysku ekaysiiyo, dadkeennu isku ekaysiiyaan iska daaye. undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam. low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii la dalaltum buu yidhi. haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin. nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay, nasiib ayaan ini yahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi. haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa, uu shareecadiisii tawraad la iman lahaa, ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam, ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd, ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa, jannadana gelitaanka ugu horraysa, ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin, nasiib ayaa inagu helay buu nebigu yidhi. nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey, imaamkii ambiyada maadaamoon ahay, nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa. ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay, ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan. ana wuxuu nebigu yidhi, xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa. jannada nebiyadu geli maayaan, waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine. wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii. ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummaddaydu ay gasho maahine. qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic, markaasuu u duceeyey, wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii, waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa. asxaabtu waxay ku yidhaahdeen, awalasnaa ikhwaanaka, miyaan anaku walaalaha ahayn? laa antum asxaabii, ininku asxaabtay baa tihiine, walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi. sideed u garan doontaa? saxaabadu waxay yidhahdeen, dadkaas maabad aragin adigu, iyakuna kumay arag. sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi. 120 saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi. dadka ahlu jannuhu waa 120 saf, 80 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi. atardawna an takunuu ruba ahli aljanna? qulnaa balaa. cabdullaahi bni mascuud baa yidhi, nebigaa maalinna urriyo wuxuu nagu yidhi, raallima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya, 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raallima ku tihiin? asxaabtu waxay yidhahdeen, haa. atardawna an takunuu uluثa ahli aljanna? ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baa nahay yidhahdeen. markaasuu nebigu yidhi, waladii nafsu muxamadin biyadihi inii la arjuu an takunuu nisfa ahli aljanna. waxaan rajaynayaa oo ku rajo weynahay, kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi.
ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amaa ummaddan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummad inaga dambaysaana ma jirtee alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma astur man nasara diina muxamed ilaahaw ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwa dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول dhaqata isku xawla dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum bal ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xashka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zaman waa in la helo juhdu dacwa mar alle markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nebigu yidhi tog shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa lianna cumar saaxibulxaq buu haa saaxibulxaq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allahuma rabba hadihi dacwati taama laanna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryaddan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda' bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga caasinaya khayrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoominoo kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi ألا وصلوا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما
اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر